بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan oo ducada midii barta YouTube ku leenahay fadlan subscribe noo saar. Dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa maanta si rasmi ah gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ugu kala saxeexday heshiis ganacsi kaasoo ku qotoma kor u qaadista xiriirka ganacsi ee labada dal. waxaa maanta magaalada Muqdisho la keenay qaad hore u ima jiray oo ka soo dhoofi jiray dalka Itoobiya halka laga dhoofiyay kalluun. munaasabadda waxaa ka soo qayb galay safiirka Itoobiya oo fadhiya dalka Soomaaliya mudane Cabdi Fataax iyo wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. safiirka Itoobiya oo fadhiya dalka Soomaaliya mudane Cabdi Fataax oo arinta ka hadlayna waxa uu yiri sida tan xiriirka ganacsi labada wadan Itoobiya iyo Soomaaliya iyadoo markaasi laga duulayo iskaashi ay sameynayaan ganacsatada. waxaan maanta markii ugu horeysay taariikhda daahfurnay ganacsi waxyaabaha khayraadka badda ah taasoo runtii u ah tusaale in labada dal ay runtii aad iyo aad ay u xiiseynayaan in xiriirka dhanka ganacsiga la sii xoojiyo la sii kobciyo. waxaa hadda ka hor jiri jirtay in marka loo eego trade balance-ga labada dal uuna isu dhigmaynin. marka waxa weeyaan wixii hadda ka dambeeya waxay noqon doontaa bil wanaagsan oo runtii mustaqbalka noqon doona geedi dhammaan dadkoo dhan ay ku liibaanaan. heshiiskan ayaa maanta ay kala saxeexdeen labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa isdhaafsiga qaadka iyo kalluunka. wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Master Duraan Axmed Faarax waxa uu munaasabadda ka sheegay in ay labada dhinacba ay ku talaabsadeen horumar aad u ballaaran. soo hadlayna waxa uu yiri sida tan waxaan rabnaa hadda inuu bilowdo wax isweydaarsi fara badan shacabku inuu isdhex galo ganacsiguna inuu isdhex galo markay dadku la rabo in ay wanaagooda iyo walaaltinimadooda iyo dersinimadooda in la arko. waxaan rabnaa inay ayagu wax isweydaarsadaan. waxaa laga yaabaa Soomaaliya inay leedahay khayraad fara badan leedahay Itoobiya khayraad kale ay leedahay marka labadaas khayraad in la isweydaarsado oo meel kasta meeshu ka jiro baahidu ay ka jirto in tii kale ay ka kafar gareyn karto ama ay ka dabooli karto. marka haddii ahaan lahayd maanta kalluun baa la bilaabay. waxaan rabnaa khudaarta fara badan oo waddanku leeyahay oo Soomaaliya khudaar fara badan oo wanaagsan bay leedahay in halkaas la geeyo. waxaa halkaas isla ka hadlay wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdillaahi Bidhaan Warsame oo shirkaas soo gunaanaday ayaa sheegay in heshiiskani uu labada dhinacba wax u tari doono. sidoo kalena waxa uu soo hadal qaaday dowladda Kenya fiican u tahay oo weyn ganacsatada kalluumaysatada ah oo runtii dhibaato badan ku qabay kalluunkooda inay si sharci ah u dhoofiyaan oo marar badan aniga dhib badan igu hayay oo dawlad hebla noola hadalo xagga noola hadalo sidan yeel oo maanta waxaan u maleynayaa wajh fiican baa u furmay. safiirka Itoobiya iyo ragga dawladda Itoobiya runtii inay naga ogolaatay in ay kalluunka qaadato marka qaadka la keeno iyadana arrin mudnaanteeda la weeyay hambalyo. dawladda Soomaaliya markasta waxay ku dadaalaysay in uu jiro trade balance oo waxa la keeno wax lagu bedesho. Soomaaliya wax badan baa yaala khayraad badan baa yaala sida uu wasiir Duraan sheegay kan waa bilowgii. dad badan waxa laga yaabaa inay maqmaqlaan qaadka Kenya maxaa loo joojiyay. qaadka Kenya waxa loo joojiyay dawladda Kenya waxay naga diiday muddo 2 sano iyo bar ka hor baan bilownay. waxyaabaha ugu waaweyn oo jira waxay ahaayeen in annaga xagga aan wax ka dhoofino in la diiday oo kalluunka ugu horeeyay. marka tusaale maanta tahay cidii rabtay inay wax noo keento annana wax naga qaadato gacmuhu inay isweydaartaan bay ku fiican tahay. dowladda Itoobiya ayaa keentay qaad fara badan caasimadda dalka Soomaaliya qaadkaasoo markii hore ka iman jiray dalka Kenya. dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ayaa khilaaf aad u xooggan u dhaxmaray kabacdi markii ay heshiis wada gaareen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya. halkaad nagala socotaan oo barta YouTube ku leenahay Ducala Media fadlan subscribe ka noo saar halkaad nagala socotaan wali waa Ducala Media.